waxaan u wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada manfac TV qodobada wararka caalamka aan idin hayno waxaa ka mid ah Israel oo weerar cirka ku qaaday caasimadda Yemen ee Sanca maalin kadib markii ay duqeysay caasimadda Qatar ee Doha qodobkaas oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan iyo Poland oo soo riday diyaarada aan duuliye lahayn oo lala xiriiriyay Ruushka taasi oo soo gashay hawadeeda waxayna ka dhigaysaa xubintii ugu horeysay ee ka tirsan NATO oo ka qayb gasho dagaalka u dhaxeeya Ukraine iyo Ruushka qodobada iyo qodobo kale oo dhameystiran ayaad maqli doontaan waa maalinimo Arbaca taariikhdu waxay ku beegan tahay 10ka bisha 9aad ee September sanada 2025 anigoo Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf ayaana idinla socodsiin doonaa haddii aad ugu cusub tahay subscribe inoo saar channelkan like garee muuqaalkan la wadaag asxaabtaada aan ku bilaabay ugu yaraan 9 qof ayaa lagu dilay duqeymo cirka oo Israel ka geysatay caasimadda Yemen ee Sanca iyo gobolka Al-Jawf maalin kadib markii weerar ay ku bartilmaameysatay hogaamiyaasha Hamas ee caasimadda Qatar ee Doha ku sugnaa wasaaradda arrimaha caafimaadka ee Yemen ayaa Arbacadii sheegtay in 118 qof lagu dhaawacay duqeymaha Israel ay ku qaaday Sanca iyo sidoo kale Al-Jawf waxayna intaa ku dartay in tiradan ay tahay khasaare hordhaca iyadoo uga digtay in ay kor u kici karto maadaama kooxaha gurmadku ay weli baadigoobayaan dadka ku hoos jira burburka dhismayaasha weerarka uu ka dhacay wasaaraddan ayaa sheegtay in weerarada ay ku dhaceen deegaano iyo guryo rayid ah oo ay ku jiraan dhismayaal ku yaala xaafadda Al-Tahriir ee Sanca xarun caafimaad oo ku taala jidka 6aad ee koonfur galbeed magaalada iyo dhismo dawladeed oo ku yaala caasimadda gobolka Al-Jawf ee Al-Hazm kooxaha dibdemiska ayaa ku howlan deminta dab ka kacay ama ka dhashay duqeynta iyo sidoo kale soo saarista dadka ku nool burburka sida ay sheegtay telefishinka Al-Masira ee uu maamulo Xuutiyiinta duqeymo waxay beegsadeen xarun caafimaad oo ku taala koonfur galbeed ee wadankaasi Yemen gaar ahaan Sanca iyo dhismaha maamulka maxalliga ee Al-Hazm heerka dhabta ee burburka lama cadeen shirkadda saliidda iyo gaaska ee Yemen ayaa sheegtay in diyaaradaha Israel ay beegsadeen xarun caafimaad oo ku taala jidka Al-Siteen ee Sanca afayeenka militariga Xuutiyiinta Yahya Saraac ayaa sheegay in kooxdu ay adeegsadeen gantaalo lidka diyaaradaha si ay uga hortagaan weerarka Israel isagoo intaa ku daray in qaar ka mid ah diyaaradaha la celiyay ka hor inta aysan rasaas ridin ciidanka Israel ayaa bayaan ku xaqiijiyay weerarkan iyagoo ku sheegay in ay duqeeyeen bartilmaameedyo militari oo ku yaala Sanca iyo sidoo kale Al-Jawf bayaankan ayaa raaciyay in bartilmaameedyadan ay ku jireen xeryo militari oo ay ku sugnaayeen dagaalyahanada nidaamka argagixisada xarunta warfaafinta militariga ee Xuutiyiinta iyo baqaar shidaal bayaankan ayaa raaciyay in bartilmaameedyada ay ku jireen xeryo militari oo ay ku sugnaayeen dagaalyahanada nidaamka argagixisada xarunta warfaafinta militari ee Xuutiyiinta iyo baqaar shidaal oo ay isticmaali jireen marka laga soo tago dagaalka xasuuqa ee Gaza Israel sidoo kale waxay duqeysay Lebanon, Suuriya, Iraq iyo Yemen waxay sidoo kale cadaadis ku saartay Falastiiniyiinta daanta galbeed ee la haysto iyadoo kumanaan ka barakicisay guryahooda salaasadii Israel waxay duqeysay dhismo guryaha oo ay ku shirayeen hogaamiyaasha Hamas iyagoo ka doodaya soo jeedinta xabad joojinta ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay weerarkan balse Hamas ayaa sheegtay in hoggaankeeda sare uu ka badbaaday isku dayga looga damacsanaa in lagu qaarijiyo toddobaadkii hore Israel ayaa lagu dhaliilay in ay qaraxyo ku tuurtay agagaarka ciidamada qaramada midoobay ee UNIFIL ee koonfurta Lebanon ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in weerarkan uu jawaab u ahaa duqeyn diyaaradeed oo Xuutiyiinta ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha Ramon ee Israel maalmo ka hor Israel ayaa marar badan duqeysay Yemen oo ay ku jiraan garoonka weyn ee caasimadda taasi oo ay ku dhinteen dad rayid ah lana burburiyay kaabayaal bishii hore Israel ayaa duqeyn ku dishay mas'uuliyiin sare oo Yemeniyiin ah oo uu ku jiray ra'iisul wasaare Ahmed Al-Rahawi Saraac ayaa ku eedeeyay Israel in ay isku dayeyso in ay ku cadaadiso kooxdiisa inay ka tanaasulaan taageerada Gaza balse waxa uu ku adkaystay in weeraradan ka dhanka Israel ay sii socon doonaan ilaa uu joogsado dagaalka xasuuqa ee Gaza kooxdu waxay saartay go'doon badeed maraakiibta la xiriira Israel ee maraya badda cas waxayna qaaday weerar cirka oo ka dhan ah Israel iyagoo u muujinaya midnimada shacabka Falastiin Xuutiyiinta ayaa sheegay in ay joojin doonaan weeraradan Israel marka la gaaro heshiis xabad joojin oo Gaza oo ka dhaqan gasho taasi oo burburtay kadib 23 bilood oo duqeymo joogto ah in ka badan 64,000 oo Falastiiniyiin ayaa lagu dilay tan iyo markii Israel ay bilowday dagaalkii bishii Oktoobar sanadkii 2023
ugu dambeynna dowladda Poland ayaa soo riday diyaarado aan duuliye lahayn oo soo galay hawadeeda, taasi oo ka dhigaysa xubintii ugu horreysay ee ka tirsan NATO oo rasaas amaba ka qayb gasho dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. Poland ayaa soo riday diyaarado aan duuliye lahayn oo looga shakisan yahay Ruushka Arbacadii ee gudaha hawadeeda, iyadoo taageero ka heshay diyaaradaha xulufadeeda NATO. Tani waa markii ugu horreysay oo xubin ka tirsan isbahaysiga militariga ee reer galbeedka ay rasaas ama weerar ku qaado ama ay ku furto dagaalka Ruushka ee Ukraine tan iyo sanadii 2022 soo socday. Ra-iisul wasaaraha Poland Donald Tusk ayaa baarlamaanka u sheegay in tani ay ahayd xaaladda ugu dhow ee dagaal oo furan tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Hase yeeshee wuxuu intaa ku daray inaan jirin sabab loo aaminsan yahay in qarka loo saaran yahay dagaal buuxo. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in diyaaradaha dagaalka ee Poland F-16, kuwa Dutch F-35, diyaaradaha qumaatiga u kacay ee kormeerka Talyaaniga iyo diyaaradaha NATO ee shidaalka hawada ku shuba dhammaantood la howlgeliyey si ay u soo ridaan drone ka howlgelaya hawada ama ku jiray hawada Poland laga bilaabo fiidnimadii Salaasada ilaa subaxnimadii Arbacada maanta. Hal drone ayaa ku dhacay guriga 2 dabaq ee guri dhismeed oo uu lahaa oday markaasi oo ku yaalay tuulada Wielki Wola ee bariga Poland abbaare 6:30 aroornimo xilli uu daawanayay wararka. Saqafka ayaa gebi ahaanba burburay, burburkana waxa uu ku faafay qolka hurdada. Haddaba ninkani ayaa u sheegay warbaahinta in guriga uu u baahan yahay in la dumiyo. Goob kale oo beero oo ku taala bariga Poland ayaa muujisay ama la sheegay inay ahayd meeshii qaar ka mid ah dronsiyada kale ay ku dhaceen, iyadoo markaasi raad gubasho ay ka muuqatay halkaasi. Moscow ayaa beenisay mas-uuliyadda weerarkaasi, iyadoo diblomaasi sare oo Ruush ah oo Poland u jooga uu sheegay in droonkan ay ka yimaadeen dhanka Ukraine. Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in dronskeedu ay weerar ku qaadeen saldhigyo militari oo galbeedka Ukraine ku yaala, balse aysan qorsheen inay bartilmaameedsadaan Poland. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qorsheeyay inuu Arbacadii ka hadlo arrintan isaga iyo madaxweynaha Poland oo ah xulafada siyaasadeed ee uu toddobaadkii hore marti ku ahaa aqalka cad. Hogaamiyaasha Faransiiska, Britain, Jarmalka iyo Canada ayaa si xoogan u cambaareeyay xadgudubka Ruushka, iyagoo ku tilmaamay mid khatar ku ah NATO. Hogaamiyaasha Yurub oo isku dayay in ay Trump ku qanciyaan in la adkeeyo cunaqabataynta ka dhanka Ruushka iyo taageerada Kiev ayaa sheegay inay tani u baahan tahay jawaab wadajir ah. Poland ayaa sheegtay in 19 diyaaradood oo aan duuliye lahayn ay soo galeen hawadeeda intii lagu guda jiray weerar ballaaran oo Ruushka uu ku qaaday Ukraine, isla markaana ay soo rideen kuwii khatarta ahaa. Donald Tusk ayaa dhacdadan ku tilmaamay dhiirigelin ballaaran, waxaana uu dhaqaajiyey qodobka 4 ee heshiiska NATO, kaasi oo dhigaya in xubnaha isbahaysiga ay codsan karaan wadatashiyo degdeg ah. Mana jirto weli faahfaahin buuxda oo Poland ama NATO ay bixiyeen oo ku saabsan ujeedada droneska ay lahaayeen. Ilo military ayaa sheegay in ugu yaraan 5 ka mid ah duulimaadyada droneska ay ku jihaysanayeen garoonka diyaaradaha ee Rzeszów oo ah xarunta NATO ugu weyn ee hubka lagu gudbiyo ee Ukraine. Isla ilo military ayaa sheegay in Ruushka uu isku dayay inuu tijaabiyo awoodda difaaca hawada NATO iyo nidaamyada digniinta. NATO kama aysan jawaabin arrintaasi, balse xogayaha guud ayaa horey u sheegay in baaritaano ay socdaan, isagoo ku tilmaamay duulaankan mid si xad dhaaf ah khatar badan keenaya. Haddaba kusimaha safiirka Ruushka ee Poland ayaa laga soo xigtay wakaaladda RIA, isagoo ku tilmaamay eedeymahan kuwa aan sal iyo raad toona lahayn. Waxaana uu sheegay in Poland aysan caddeyneynin in droneskan la soo riday ay asal ahaan kasoo jeedo Ruushka. Afhayeenka Kremlinka ayaa isna yiri Midowga Yurub iyo NATO maalin kasta way nagu eedeeyaan waxyaabo iyagoo aan haynin cadeymo. Intii uu socday weerarkan, taliska ciidanka difaaca ee Poland ayaa ku booriyay shacabka inay guryahooda joogaan, gaar ahaan 3 gobol oo bari oo halis badan laga soo sheegay. Garoomo diyaaradeed oo dhowr ah iyo si ku meel gaar ah loo xiray oo ay ku jirto garoonkan oo marin muhiim ah oo ay ka gudbaan mas'uuliyiinta reer galbeedka iyo sahayda u socota Ukraine. Dalalka xuduudda la leh Ukraine ayaa marar hore u sheegay in gantaalo ama drone Ruush ah ay mararka qaarkood usoo gudbaan hawadooda, balse tan oo kale ballaarin oo ma aysan dhicin, lagumana soo ridin. 2022 2 qof oo Poland ayaa ku dhintay kadib markii gantaal difaaca cirka oo Ukraine leedahay oo si qaldan ugu dhacay. Tani markii la aasaasay NATO 1994
waa 49 qodobka afaraad ayaa 7 jeer la dhaqaajiyay ugu dambeyn bishii Febraayo 2022 markii Ruushka duulaanku ku qaaday Ukraine. Ruushka muddo dheer ayuu sugayay inuusan inta badan rabin dagaal uu la galo NATO, wuxuuna ku eedeeyay wadamada reer galbeedka in ay rabaan in ay sii xumeeyaan xiriirkan. Madaxweynaha ka tirsan guddiga Yurub ayaa ku baaqay in la kordhiyo cunaqabataynta Ruushka, iyadoo sheegtay in midowda Yurub uu diyaarinayo cunaqabatayn cusub oo lagu beegsanayo maraakiibta qaada saliidda Ruushka iyo dalalka saddexaad ee iibsada. Trump oo si diiran uga soo dhaweeyay Putin ama u soo dhaweeyay shirkii Alaska bishii Agoosto iyo toddobaadkan sheegay inuu diyaar u yahay inuu galo wejiga labaad ee cunaqabataynta Ruushka kadib bilo wada hadallo ku saabsan heshiis nabadeed. Inta ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalka iyaga wararkii caalamka kuwoodii ugu waaweynaa iminka aan isha soo marinay. Fadlan like garee muuqaalkan meel dheer gaarsii, subscribe noo saar channelkan, la wadaaga saxaabtaada.